waxaa fiican caloosha inay dadka iskala socdaan. nin shalay kuugu tilmaamaya argaxiso iyo Soomaali inaad ka tirsan tahay intuu meel kuu imaado inuu ku dhaho Puntland waa khalad. anina dee waxaad tihiin dadkii 93dii galkacyo ila dafaayo calooshaan igala socdaa. idinkana calooshan iskala soconno, inta kalena ammaana kala helno. haddii kale beri markaa isku dhacno khaladkiyaa iska leh annaga, qof kale ma iska lahan. xasan sheekh ma iska lahan, ismaaciil geela ma iska lahan, muuse bixi ma iska lahan. waxaa iska leh Garowe iyo Laascaanood. inay meeshii ka dhigaan meel la isku haysto oo yidhahdo adduunka meeshan waa la isku haystaa, laba maamul baa isku haysta, intaasay rabaan, wax kale ma rabaan, intaasay rabaan. boqolkiiba boqol haa weli waxay moodayaan kelmadii yarayda distributor iyo waa lagu muransan yahay iyo wixii inay shaqaynayso wixii inay u dhamaatay ma oga oo ilaa iyo maaragtay golihii ammaanka la geeyey oo dambiilayaanba waaba dambiilayaal waxay ka hadlaanba uma taalo. marka xaajadan aad baa loo roogay rag baa ka fadhiistay maqaawiir ah oo beelaha u dhashay isimada back up ah iyaga marjaca firdhiya mandate-ka waa haysta isimadu mar horey u caddeeyeen oo siiyeen tixgelinta feeri. waxaad xasuusataan laba qodob baa aniga mar hore waxay caddeeyey doorashada Puntland waxaa la qabanayay ee dowladaha hoose maamulka SSC aan soo bixin laakiin isimadu fadhiyaan dee lagama codayn dhulkan maaragtay SSC-da buuhoodle booliiskii iyo wax walba ka shaqaynaya Laascaanood elba ma joogin Puntland codayn iyo buuqtoona lama gelin. waxyaalaha caddeeyay kamid tahay oo clearance-ga sameeyey markii horeba. marka sagaar laba toban dee cumar waxaa kugu filan baa iminka Jubbe mar gobolka Sanaag xitaa marka Jubbe iyo Jiidali waxay isku jiraan moogta. Jubbena waa laga codeeyay, Jiidalina lagama codeyn moogta. marka respect iyada bilaadin xaqiiqdii ha waraaqaha ma aanan soo saarin maamulkan lama dhisin 43 baa shaqaynaysa dagaalka socday. marka nimayahu dadkani ha noqdaan qadarta iyo Dubayda magaalada ah oo qaniga ah power sharing-ka dekadahooda daris wanaag anigu waxaan u arkaa culays in la yar kala fududeeynayo wax aad iyo aad muhiim weeye. siyaasiyiinta Puntland aad bay u soo dhaweeyeen. waxaan xasuustaa kulankii ka dhacay Garowe Cabdisaaq Khaliif iyo Cumar Cabdirashiid ex prime minister laba jeer noqday, Cabdiweli madaxweynihii marna prime minister interviewdii marka dambe ay bixiyeen. halkan Turkigan wada joognaa waxaan oo dhan aanu habeen kasta su'aalo iskaga weydiinaa. Cumar Cabdirashiid ma joogo laakiin inta kale waa joogaa. Cabdisaaq Khaliif baa degan, Cabdiweli Gaas baa degan, rag badan baa degan oo maqaawiir ah. marka waa waxyaalo badan baa ku soo baxaya haddaad aad maartay ula fadhiisato dadka noocaasa. wax khilaaf ah kama jiraan ilaa hadda miyaad aragteen wax khilaaf oo arrinta nin gelinaya ma jirto. marka waa twin sisterskaas la sheegay 10 jeer dhibaatana ma jirto. nimankii xaggaana oo jabay dee waxay soo celiyaan baaba iska yar iyagana heegan baa loo yahay. dhulkana waxa ka hadhay xuduudihiisa waa la soo xidhi. safarka xamar iyo dowladdaas madaxweynuhuna kulley guul buu kusoo dhammaan waxaa umaya 2 cashay meelahaasaba hadda u hadhay isna guul iyo gobonimo kusoo dhammaanaya. safaaradii iyo badidooda waa la kulmay. xasan sheekh hadduu soo noqdo inay sarkaan macquul. marka yaynaan yeelin waxyaa dadka social media ka hadlo hadda uu jaac sheegayay oo ina dhex ordaya oo balaayo kala wada iyadana aad la isaga ilaaliyo. qofka markuu qadiyadan ka hadlayana qaab xeel dheer oo dadka qaar baba shaki isgelin iyagoo wax kasta uga artay shaki isgelinaya armay iyo laakiin iyo armay sidan tahay iyo armay waraaqa soo baxaan iyo war cid u kala hadhay ma jirto ilaa xildhibaanada federaalka jooga oo reer SSC reer Puntland ilaa kuwa Garowe jooga oo labada dhinacba ah ilaa isimo ilaa dhaqan siyaasiyiin hore ururada haweenka shacabka mikrafoonna lala dhex maray Mudug iyo Garowe. marka iyo Laascaanood Cumar wax yar aan ka dhex galo waxaan rabaa dadka inaan fahansiiyo hadalkaaga hadda leedahay khilaaf meeshan ma jiro waa run
wax khilaafa oo Puntland iyo SSC dhex taalla horta ma jirto dee nin dibadaha jooga wuxuu dana waa isla hadli karaa maalintii ahayd arbacada firdhiya wuxuu soo baxay jamcuu soo baxay arbacadii markay isugu tageen madaxweyne ku-xigeenka Puntland iyo asagoo waftigiisa isugu tageen tuuladii harwanaag markay ku qadeynayeen waxay la hadleen madaxweyne dani oo markaas joogay Nairobi joogay la hadleen wixii meeshan asray wuxuu yidhi xamar baan jamcaha aadaya madaxweyne ma iga soo gaartaa buu yidhi wuxuu yidhi waqti ma hayo hawl baan Addis Ababa shirar ku leeyahay oo muxuu ahaa jamcaha iyo khamiista aan qoryo la ballansanahay marka tag buu yidhi laakiin nimankaas aad u tagaysid laba qodob waxaanayna kala hadlin buu yidhi labada qodob buu yidhi aan kala hadlin qodob saddexaad ha kala hadlin iyana qodob saddexaad oo Puntland hadday kugu soo qaadaanna sida ugu jawaab labadii qodob uu yidhi nimankaas kala hadal oo weliba Xamse buu yidhi nin taran ka goda maahan madaxweynaha arag buu yidhi labadaa qodobna hordi kow SSC aqoonsigeedii madaxweynihii federaalka tahay inay ka mid noqoto dowladaha xubnaha ka mid inay ka mid noqoto waa inaad saxiixid oo ogolaatid iyo hay-adihii caalamiga deeq-bixiyaasha ahaa inay gobolkii tagaan oo wixii burburay arrimihii bulshada xaafishadii caafimaadkii waxbarashadii biyihii korontadii in hay-adaha caalamka ku yimaadaan haddii uu ku yidhaahdo Puntland soo kama tirsidine wax jawaabtaa siinaysaa ha ahaata buu yidhi annagu maamul curdan ahaan nahay Puntland waa maamul gaamuray waa maamul dhisan waabaan ka wada tirsanaan jirnay laakiin hadda maamul baan samaysanay SSC yadaanu waxaysanay Puntlandna waa maamul dariskaya ah wixii kaalmaha aan ka heli karno iyo waxay tari kartana waxna waa na tartay wixii kale way na taraysaa laakiin halka isaga moosbiyo laakiin labada qodob ha uga soo jimcin horta heshiis sidaas lagu wada tagay oo lagu wada ogaabu ahaa go'aan maaragtay nin gaar oo garab surtay ma ahayn sidaas horta hawsha loo wada galay qof walbana waa inuu inta ogaada aad baad mahadsantihiin intaas aan rabo inaan ku daro aan iloobo waa mahadsantihiin jaacow intuusan qaadan ninka la yidhaaho alito sorry waxaan ilaaway kuwa la yaacaya arkay heritage baa gacanta ku dhigtay madaxweyne heritage horta waa maxad cilmi baadhis waxaa ka tirsan cabdikariin xasan jaac nin aad u culus waad garanaysaan ekas wasiir ah gudoomiyaha jaamacadda city muqdisho ah laascaanood yimi nin reer SSC ah weligii u soo dhimrinayay in dadkaasi maamul helaan xilligii Sheekh Shariif wasiir ahaa ninkii telefishinkan SNTV xilligiisii uu hawada soo galo ka shaqayn jiray cabdikariin xasan jaac uu garanaya xildhibaan cabdibare dadka dhan way garanayaan marka iyo rag kaloo akhyaar fara badan marka heritage hadday macluumaadyo khaladaada iyo wax qorqorto oo waa group dhan oo team ah marba ninkii doona wax qori kara waa maxad iyadoo mid kale qofku مثلا قف بكسوق أنا شعب مثلا سهينا دي وجهنا عبد البر حلو عبد البر وكله شقين كرا وجهنا شعب وكله شقين كرا ما عدان تون أنا قصور أحسن معناها الضدك واحد يسكو حريان وحيالات بدن يسكو خلطية بكمل مركا هيريتيج يعني عبد الكريم حاس شعب ونين لتشنا إكس حلبان أبغى تقانين أيا كترسن وأرجع حمر يعني لاسعانو دي هبين كدويد حفلتي وينيدي تشوقي xildhibaanadii dhowr iyo 60 weynaa iyo sanataradii xamar ka soo raacay diyaaradda ka soo qaatay waa nin ka soo shaqeeyay ilaa iyo SSC jabhadda ahayd hore 2009 khaatumadii taleex marka heritage in dib loo arkin hadii iyo hotel jasiira qaar ba kule hotel jasiira lagu qabtay bal dadka meesha uu cabirkoodu gaarsiisan yahay hotel jasiira waa hotel xamar ku yaala oo ganacsi oo furan warwa ka baxay qaatay may niyo waxaan weyn ani saddex qodob cad inaa dhigo qodobka koowaad waxa waaye dagaalkan hadda dhacay waa la isku bartay oo dadkii wixii ka qorsoonaa hadiiba dad jireen oo indhahooda iska xirayeen maanta waa la is arkay
dadka maanta Puntland iyo khaatimo siyaasadooda falanqeynaya waa kuwii shalay mar soo qorayay argagixisaha laascaanood soo gashay marna soo qorayay laascaanood Somaliland bay ka tirsan tahay wax faa'iido iyo maanta soo wadaana waa garanaysa in dagaalka meeshu ka socdo taas marka la soo dhaafo labadan gobol maamul hadda soo baxay maxaa dan u ah kow Puntland wax lagu jabiyo ama khaatimo wax lagu jabiyo wixii noqonaysaa wax Puntland labadaba lagu jabiyo oo maanta hadda khaatimo la jabiyo Puntland baa la jabiyo Puntland hadda la jabiyo khaatimo la jabiyo so wixii siyaasadda ma garanaysaa banaanka waxa waa in laga noqdo mid oo mataana ah intaas marka la soo dhaafo anaga haddaan nahay reer Puntland iyo idinka haddaad tihiin khaatimo 32 sano anagoo isku beela oo aftilis markay noqoto habar shacab isla siman waxa isku fahmi la'aanahay runta ma isku sheegno anaga siyaasad ahaan ma isfahmi karno waxuna maahan laba qof oo isla dhashay baa isfahmi karin laakiin labada qof waa inay fikiraan haddaan isfahmi karin maxaa xal noo ah xal waxa noo ah inaan soo dhigno dhibaatadeena maantay khaatimo iyo Puntland waa in la kala siibo 66 xildhibaan hadda Puntland joogo 17 khaatimo ka soo jeedo ayagoo la dhibaateynin oo la caynin waa inay iscasilaan wallahi billahi talaay Axmed Karash waa inuu iscasilo deegaanka markuu ka baxo siyaasadda oo doorasho hadda la aadayo oo nimankan u codeynayaan 49 bastardena oo deegaankaas ka soo jeeda ha codeeyaan laakiin meesha dhibaatada ka jirta waxa way run isku sheegno khaatimo waa gobol dhisan oo dadkiisa deegaankiisa maanta wixii u baahan yihiin qofna tilmaami karin oo gobol dhisan oo hogaankiisa iyo wixiisa leh federaalkana maanta u yaadeen waraqada federaalkana baryamo lagu soo qaadanayo oo waa mid awood lagu qaadanayo inta gaariyaal iyo inta hub iyo canshuurteena iyo xuduudeena iyo dowladdeena baa ku qaadanaysiin wax aad baryo ama qof aad ka weydiisanaysiin ma jirto laakiin labadan gobol maamul waa in la kala siibo reer khaatimo siyaasadda Puntland internalka markay noqoto wax ka gala ma jiro reer Puntland siyaasadda khaatimo markii la soo dhaxgalo wax ka gala ma jiro ani hadda reer Puntland ahay idinka madaxweynihiina iyo madaxweyne ku-xigeenkiina iyo golahiina iyo dhaqaalaha saa u samaysanaysiin iyo siyaasadda saa u wadaysiin wax ani shuqula ku leeyahay oo ay ka duwan tahay kan Kismaayo ka soo jeeday kan Baydhabo ka soo jeeday iyo kan Dhuusamareeb ka soo jeeday ma jirto adina marka la saanad ka soo jeeday galway waxa ka socdo internalka wax ka gala ma jiro wixii la siman tahay Baydhabo iyo Kismaayo iyo Dhuusamareeb laakiin haddaa inta meel isla fadhiisano oo runta la isku sheegi waayo oo wixii isku darsanaadaan oo maanta doorashadii Puntland ay ka soo qayb qaadanayaan dad khaatimo state kursiga dastuurka Puntland ugu fadhiyo bari marka la iska qabto khaladka waxa iskale labadeena because waxaan nahay laba doqomin oo dantooda garan waayo oo intii mi soo fadhiisaan isdhihi waayo walaalayaal de waa kala baxnay danteena guud ah ka shaqaysano nabadgeliyo iyo barwaaqo iyo hamama ku joogno haddaa maanta anaga cadow isla nahayn dhiiga isku daadinayno ma dhici lahayn haddaa dad oo meel kale ka soo jeedo noqon lahayn waxa isku tarnimaystari lahayn waxaan nahay laba qof oo isla dhashay oo kala maarmin laakiin labada qof isla dhashay isku xaafad inay ku noolaadaan khasab ma ahan isku gaari inay fulaan khasab ma ahan idinka Mercedes-kiina iyo xaafadiina 6 piano geeskaas fadhiista anagana Benz-keena iyo xaafadan 6 piano meel baa fadhiisanaynaa hal la kala baxo laakiin intuu 12 maxaa la bastardido 6 keena laga sugiyo iyo intuu Axmed Karash meesha fadhiyo de ma kala baxeeno sidoo isku caasilay Abdi Khaliif ninka speakerka Somaliland aha Axmed Karash haduu maanta is caasilo oo laascaanood imaado oo doorasho qaado madaxweynuhu noqon kara wax oo ka dhiman horgal ma ahan qof dadkiisa baadiye ma ahan waa qof dadkiisa u shaqeeyay haddii ayagoo dhanba soo guraan oo laascaanood imaadaan faan ma ahane ceeb maanta qof ku tilmaami kara ma jiro anagana dee waxaan nahay dad walaalo waxaa fiican caloosha inay dadka iskala socdaan nin shalay kuugu tilmaamaya argaxiso iyo Soomaali inaad ka tirsan tahay intuu meel kuu imaado inuu ku dhaho Puntland waa khalad anina dee waxaad tihiin dadkii 93 galkaayo ila dafaayo caloosha inagala socdaa idinkana calooshan iskala socono inta kalena amaana kala helno haddii kale bari markaa isku dhacno khaladkiyaa iskale annaga qof kale ma iska lahan xasan sheekh ma iska lahan Ismaaciil Geela ma iska lahan Muuse Bixi ma iska lahan waxa iskale Garowe iyo Laascaanood